kulan ay ku yeesheen magaalada Laascaanood odayaal dhaqameedyo ka soo kala jeeda gobolada Sool iyo Maroodijeex Hargeysa kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii odayaasha labada dhinac iska kaashan lahaayeen taageerida musharaxa xisbiga muxaafidka ah ee Somaliland talada haya Kulmiye Muuse Biixi Cabdi odayaal ka soo kictimay magaalada Hargeysa oo maalmihii ugu dambeeyay joogay magaalada Laascaanood ayaa kulamo kala gedisan la lahaa odayaasha reer Sool kaasoo ay doonayeen inay taageero uga helaan si ay u taageeri lahaayeen musharaxa xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi kulankaasi ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Laascaanood ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil kaasoo sheegay inay isku afkarteen suldaanku wuxuu yiri cod baan idinka doonaynaa dhulbaahantay iyo fuqushinina waxay yiraahdeen codkii waanu idin siinay aniguna maadaama aan garaadkii gobolka ugu ahaa inkastoo garaadada kala joogaan maanta magaranaysaa ugu weynaa hadalka qabiilku isku raacay ka hor imaan maayo waan ku raacay waa idinku ducaynaynaa waa idinku soo dhaweynaynaa waa idinku garab gelaynaa halkaa jiif caaqilkii Cabdiqaadir Abyan Koora ka hadlay waa caaqilkii ugu shisheeyay Taleex waa caaqilkii xuduudda soo xidhay way hadalkiisaanu qaadanayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad naga doonaysaan waa naga helaysaan ku talagala وأنا أذكر وأنا بارك الله فيكم وبالله التوفيق والسلام عليكم تعالى وبركاته. واحد قوله أو الشرفة أو نصيبة إلى ما تلان نقول إنسان إذن كقول إنسان واحد هو تركي واحد إذا لي مدان يعني اللي يجوا هذه لا يكذبوا إلى هاي نهاية أسطورة ماشي إن شاء الله وتقبل إنسان. وفتك بلارن سلطانكو هجابين أيو سبير أول حنا يسور دوالة عدسي بعد نقع عصتين حبان نولات تمادين waxaan ku bishaareen horta codka waa insiinana codsiga noolad timaadeen waa insiinana waxaan ku bishaaraysataa waan soo dhaweynana codka naga dalbateena diyaar baan idin lana insha Allah sidoo kale Sultan Xasan Sultan Cabdiraxmaan ayaa uga mahad celiyay odayaasha reer Sool sida ay uga ajiibeen codsigoodii ahaa inay la taageeraan lana dhisaan musharaxa xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye ee u tartamaya xilka madaxtinimada ee Somaliland oo la filayo inay ka dhacdo Somaliland 13 bisha soo socotay November Muuse Biixi Cabdi gudoon bay noo tahay walaalayaal gudoon bay noo tahay insha Allah bismillaahi kariim sidaasay walaal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sidaasay ku wada dhisayna insha Allah bismillaahi kariim walaalayaal aan maanta u ahayn ergada toban taabada ah ee dhisitaanka مشرح موسى بيحي عبدي مشرح مدحوينينimo xisbiga Kulmiye mar hadaad nala qaadateen oo garaadadiini gudoon bay noo tahay walaalayaal gacan bay noo tahay garab bay noo tahay sharaf bay noo tahay Farax Dubad goobjoog Laascaanood